walaalo wada dhashay oo aanu midna ka kale halka uu xildhibaanka ka yahay ku booqan karin dantu waxay badaysaa inay ku kulmaan wadan saddexaad wariye cabdirasaaq xaaji catoosh ayaa bartiisa Facebook soo dhigay laba sawir oo uu ku soo dul qoray markaad macalinkaaga oo muddo dheer kuugu dambeysay aad dariiqa ku aragto maxaad u malayn lahayd waa senator Dubbo wiil wax soo baray kula kulmay wadada isagoo maraya haddaba daawadayaal sawirka koobaad waxaad ku arkaysaan xildhibaan Cismaan Abakar Dubbe oo wasiirna ka ah dawladda Soomaaliya oo laabta gelinaya ardaygiisii waxa gadaashoodana ka soo muuqda xildhibaan Jaamac Abakar Dubbe oo ah xildhibaan baarlamaanka Soomaaliland labadan xildhibaan ee walaalahahi waxay markan ku wada sugan yihiin magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga oo ay fasax ku joogaan waxay kala matalaan laba wadan oo colaad siyaasadeed dhex taalo maadaama ay wali Soomaaliya faraqa sii haysata Somaliland goosatay ee madax banaanideeda halganka qaraar dabadeed ku guuleysatay labadoodaba waxa la doortay sanadkan aynu ku jirno xildhibaan Jaamac Abakar Dubbe mire oo ah labadooda ka weyn waxa laga doortay gobolka Togdheer waxaana uu codeeyay 3635 qof oo si xor iyo xalaal u codeeyay halka Cismaan Abakarna ay u codeeyeen 28 qof oo qura oo ku sugan hool Muqdisho ku yaala waxaana uu codeeyay dad madaxa iyo wajiga qarsaday oo aan cagdhigi karin wadanka ay sheegteen ee Soomaaliland qoysaska siyaasadda Soomaaliya iyo Somaliland marka soo wada muuqday waxa kamid ah qoyska reer Buuba oo iyaguna mar ay kuraasta dalka looga taliyo wada fadhiyeen Ismaaciil Buuba oo Muqdisho wasiir ka ahaa iyo Ibraahim Mahdi Buuba oo Hargeysa xildhibaan ka ahaa sanadkiidu ay ku dambeysay Ismaaciil oo isagu Hargeysa u soo laabtay inanku adeerka uu ahaana ku raacay mabdi'iisii Somalilandnimo weydiinta maqan maantana waxay tahay labada Dubbe kee guuri doona mustaqbalka sadalkay ayay isugu biyo shuban doonaan saadaashuna waxay u badan tahay sidii caadadu ahayd in Dubbaha Muqdisho uu shaqo tagay Hargeysa cafis oo weydiisan doono si xaqiiqadu waa mid maqan